الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. وقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم عليه السلام، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، وفيها تقوم الساعة، وفيها ساعة لا يوافقها رجل مسلم يسأل الله تعالى خيرا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ما شاء الله. ilaahay baan ku mahadinaynaa walaalayaal. salaada casar yowm aljumca waliba ilaahay na soo kulansiiyey masaajidkan jaamica, allahaasaan ku mahadinaynaa. insha allah waxaan rajaynaynaa saacaddaasi inay tahay saacat alijaaba, saacaddii ducada la aqbalayay ee qabuuliyadda lahayd in ilaahay nooga yeelo oo ilaahay camalkeenna uu ka yeelo ikhlaas. insha allah dhahda anigana ka hadalkayga diintaan ka hadlaayo inuu ilaahay ikhlaas iga yeelo, maxaa yeele camalka ikhlaaska unbaa ilaahay aqbalaa. innakana dhegaysiga aad dhegaysanaysaan aad soo ajiibteen ilaahay kalaamkiisa, ilaahay inuu nooga dhigo ikhlaas. maalmaheenna inagu soo noqnoqonaya ee 7 maalmood ah ayuu nabigeenu sheegay calayhi salaatu wasalaam inay tahay maalinta ugu fadli badan maalinta jumcada. ummadihii naga horeeyana ummad walba maalin baa loo doortay oo ay shaqada adduunyada ay ka nasanayeen oo cibaadada ay badsan jireen. nasaaraduna axadda ayay lahaayeen, yahuuduna sabtiday lahaayeen, laakiin innaka ka muslim ahaan ilaahay jalla wacalaa waxau noo doortay yowm aljumca, waa sayid alayaam, waana maalinta maalmaheenna ugu fadli badan weeyaan. uu nabigeenu calayhi salaatu wasalaam xadiis saxiixa uu ku yidhi maalmihiinaasi maalinta ugu fadli badan buu nebigu yidhi waa jumcada. maalinta jumcadu maalmaha kale waxay kaga fadli badan tahay waa 5 khasladood. khaslada koobaad wuxuu nabigu sheegay inay tahay maalinkaasi maalinkii nebi aadan la abuuray calayhi salaam. yowm aljumca nebi aadan la abuuray calayhi salaam. khalaa'iqda abuurkoodana asaga ugu dambeeyaaba la yidhi, oo samada abuurkeeda ayaa ka horeeyey, arlada abuurkeeda ayaa horeeyey, buuraha abuurkooda ayaa horeeyey, jamaadaadka iyo dhirtan adduunyada ku taalla iyo wixii geed bini aadamku ay manafacsadaan oo dhan ayaa ka horeysay aadam abuurkiisa. maxaa yeele bini aadamku baahi fara badan buu leeyahay. baahidiisii markii adduunka lagu dhammaystiray wuxuu u baahnaay oo dhan, dhulkii, cirkii, cadceeddii, biyihii, dhirtii, khudaartii, xayawaankii, bahaayimkii, hawadii, xaajaadkiisii oo dhan markii la abuuray ayaa nebi aadan la abuuray calayhi salaam yowm aljumca. jumco ayaa gelinkii dambe ruuxda lagu afuufay. khaslada labaad ee jumcadu maalmaha kaga fadli badan tahay buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam, maalin jumcana waa la geliyey jannada. jannadaasi culimmadu qaar waxay idhahdaan ma jannat alkhuldi ba, mise janno waxay ahayd nebi aadam calayhi salaam keligii loogu talagalay oo isagoon lagu ikhtibaarayay. qole waxay idhahdaan waa janno isaga uun lagu ikhtibaarayo isaga gaar u ahayd.
waayo jannatul khuldi hadday tahay bay culimmada qaar leeyihiin jannatul khuldi haddii mar la galo lagama soo baxa bay leeyihiin laa yamasuhum fiiha nasab wamaa hum minha bimukhrajiin baa ilaahay yidhi ahlaljannuhu jannada haddii ay galaan jannada ay galeen dhexdeeda wax tacaba oo ku soo gaadhaya ma jirta baa ilaahay yidhi kuwa jannada ka soo baxana maahin baa ilaahay yidhi allah ina geliya jannadaas marka culimmada qaar waxay leeyihiin janno beenbeena ma jirtee jannadu taasay ahayd baartii runtay ahayd walaakiin ilaahay waa siduu doona yeela weeyaanoo aadam jannada baa lagu dhex ikhtibaaray haluma jar midkee dooniba ha noqoto jannadaasi qur-aanku waxa uu noo cadaynayaa in jannada nebi aadan lagaga soo saaray gaf uu jannada dhexdeeda uu ku galay ee ahaa walaa taqrabaa haadihi shajara fatakuuna min aldaalimiin baa ilaahay ku yidhi jannada ha u dhowaanina adiyo xaaskaadu haddaad geedkaa u dhowaataan baa lagu yidhi geedkaa haddaad u dhowaataan geedkaa jannada aan iiga digna inaad ku dhex cuntaan haddaad u dhowaataan kuwa daalimiintaee naftooda dulmiyey baad ka mid noqonaysaan baa ilaahay ku yidhi marka nebi aadam calayhi salaam maalin jumca ayaa la abuuray maalin jumcaana jannada waa la geliyey maalin jumcaana jannada waa laga soo saaray oo arlada ayaa la keenay maalin jumcana saacadda qiyaamada dhici doonta buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam maalin jumce xataa subax jimce ayay cadcaadu ka soo noqon doontaan maaragtaane xagga maqribka ka soo noqoni doontaa lidaalika xayawaanka oo dhan galabta khamiiseed marka cadcaadu ay sii dhacaysa baa la yidhi habeenkaa cabsi ayay ku baryaan cabsi ayagoo ka cabsi qaba waa berigaa dambe inay noqon karta maaragtaane maalinta saacadda qiyaamadu ay dhacaysa iyagoo ka cabsi qaba inay tahay maalinkaasi maalinka qiyaamadu ay dhacaysay laakiin labada culculus buu nebigu yidhi warka ayagu ma hayaan waa jin iyo insigu labada kama warqabaa maba waraystaanba bal wadannada qaarkood macaasida ugu badan habeenkaa jimcahay sameeyaan dadka dowladaha islaamka maadaama maalin jumca ay fadhiyaan habeenkaa khamiista gelinkaa dambe khamiista habeennimadeeda fasaad baaba loo dareeraa wadannada carbeed iyo wadannada islaamka halka bahaayimka oo dhan habeenka cabsi ay ku seexanayaan iyagoo ka cabsi qaba waa berigaa dambe baryi doona inay suuragal noqon doonto maalintii suurta la afuufaayey ama maalintii cadcaadu ay ka soo noqonaysay meeshay ka dhacdee toobaddu ay xidhmaysay marka yowm aljumcay saacaddii qiyaamadu dhici doontaa waxaa kaloo maalintaa jumcada ku jirta buu nebigu noo sheegay calayhi salaatu wasalaam uu yidhi maalintaa jumcada buu rasuulku yidhi calayhi salaatu wasalaam saacad waxaa ku jirta saacad ducada la aqbalo oo qof muumina ma istaago oo saacadda ma waafaqo oo ilaahay casa wajalla ma weydiisto amar khayr u leh adduunyadiisa iyo aakhiradiisa ilaa waa la siiyaa buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam waa la siin xadiista qaar waxay sheegaysaa waa xilligan bacd alcasarka ilaa cadcaadu ay godka galayso marka maalinta jumcada waa ciidul usbuuc baa la yidhaayo dadka muslimiinta xataa waxaa shaqada adduunyada intay ka nastaan baa loogu talagalay inay maalinka iska cibaadaystaan oo qur-aanka ay akhriyaan oo salliga nebiga sal alla alay wasalam ay badiyaan oo maalinta jumcada nebigu waa kii lahaa salligayga badiya salligaad aniga igu sallidaan buu nebigu yidhi meel kastaba jooga oo salaantaasi way soo gaadhaa buu rasuulku yidhi oo malaa'igta ayaa nebiga u soo naqlinaysa baa layidhi malaa'igtan inala socotay acmaasheenna qoraysa ayaa maalinta jumcada haddaad salliga nebiga badaysid calayhi salaatu wasalaam salliga nebiga intaad ku salliday ayay malaa'igtu qaadayaanoo nebigay u geynayaan saxaabigii xadiiska maqlaya wuxuu yidhi oo nebi allow sidee maaragtaane aad u maqlaysaa maaragtaane salaantayada iyo salligayaga ciiddaaba ku cuntee markaa buu nebigu yidhi ambiyada jidhkooda inay ciiddu ay cunto ilaahay waa ka xarimay buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء صدح قف sidii ciidda loo dhex dhigay bay u dhex fadhiyaan baa la yidhi jirkooda carra ma taabanayso
shahiid ninka gaal gacantii ku dhintay waa sidii qabriga loo dhex dhigay baa la yidhi waliba dhiiggiisii oo qoyan oo calaamadii dhiigga ay ka muuqato oo maaragtaan laakiin carfigiisu uu yahay miski ayuu banka qiyaama soo bixi doonaa buu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam xaafid alqur'aan qur'aan ka xambaarsan ee qalbigiisa qur'aanku uu ku jirana ciidu ma cunta baa la yidhi man jaa'ahu almawtu wa huwa yatlubu alcilm liyuxya bihi alislaam baynahu wa bayna annabiyyiina darajatun waaxidatun fi ljanna alaa wahiya darajatu nubuwa ninka dhinta buu nebigu yidhi sal alla alay wasalam isagoo cilmi diineed taalib u ah oo taalibaalcilmi iyo ninka dhinta isaga iyo nebiyada jannada darajadunbaa u dhaxaysa darajadaasna waa darajatu nubuwa buu rasuulku yidhi nin sheekho culimmada reer gobolka bay ayaa beri hore oo dhowr iyo 20 sano ku dhowaad ka hor ayuu nagu yidhi aabbahay buu yidhi aabbahay oo 29 sano aasan ayaa loo baahday masaajidku magaalada dhinaceega ayuu ku yaalay deedna waxaa loo baahday buu yidhi maaragtaanay in masaajidkii la waasiciyo la ballaadhiyo masaajidka dhinaca dambuu kaga aasnaa magaalada dhinaceegana u ahaa masaajidku marka magaaladii baa weynaato hareeraha ka martay masaajidka marka qabrigu inuu ku dhex yaalana lama ogolo deedna waxaa la yidhi waxaan doonaynaa inaad noo idanto maadaama maskiidkii aan u baahannahay in la waasiciyo xaafadii iyo dadkii ay bateen inaan la naqliyo aabbaha maydkiisa ama wixii ka hadhay jirhkiisa intoo la naqliyo in qabuuraha muslimiinta loo geeyo noo idan waa nii idmay baan ku idhi anaa gacanteeda ku faqay buuhi markaa qabriga gacantayda deedna markaan waxaa dhacday buu yidhi sidii maalintii aan ku dhignay waa 29 sano ka hor siduu ahaa isagoo oo ciiddii uun bas kafankii ay ka cuntay ayaan qaadno markaasaan qabuuraha ku darnay buu yidhi laana aabbahay xaafidan likitaab illaahi buu ahaa mid kalaamka ilaahay caza wajalla xaafidsan oo qur-aanka xambaarsan buu ahaa buu yidhi marka alambiya calayhim assalaam washuhadaa waxamalat alqur'aan baa la yidhi saddexdaa qolo ciidda sidii loo dhex dhigay bay u yaalinoo ciid waxba kama cunto marka maalinta jumcada maxaa maalmaha looga fadalay baa waxa looga fadalay waa shantan khasladood weeyaan nabi aadan baa la abuuray nabi aadan baa jannada la geliyay nabi aadan jannada jumca laga soo saaray maalin jumcana saacada qiyaamada dhici doonta maalinta jumcadana waxa ku jirta saacatul ijaaba buu nabigu laana khalqiga ilaahay isaga kala fadalay maalmihii baa la kala fadalay oo dhulkii baa la kala fadalay dhulkii buqcadaha adduunka ugu khayr badan waa buqcada xaramka ku yaalla way xaramul makki thumma al-madani thumma masjid al-aqsa xaram al-makki buqcada xaramku ku yaalla ee xadul xaramka la yiraahdo waa buqcada adduunka ugu khayr badan bay culimadu yiraahdaan salaada xaramka marka lagu tukadana waa 100,000 oo salaadood 100,000 oo salaadood ba lagu qoray ajirkooda 100,000 oo salaadood waa imsa sana ma taqaanaa waa 5 sanadood iyo 6 bilood iyo 20 habeen baa la yidhi hal salaado maka aad ku tukataa waa 5 sanadood iyo 6 bilood iyo 20 habeen qof salaad iyo cibaado ku jira ajarkii baa loo qorayaa sadaqada maka aad ku bixisaa waa inta in leeg weeyaan soonka maka aad ku soontaa waa sidaas la mid weeyaan ama madiinada al-munawwara haram al-madani isaguna xuduud buu leeyahay waa 1 salaadood isagu halka masjid al-aqsana uu yahay 500 salaadood لأن هذا مساجد دي بخير البقاع أقول كان مقالة إمك ماشي أقول خير بدن ومساجدك أحب البلاد إلى الله النبي يقول المساجد وأبغض البلاد إلى الله الأسواق النبي صلى الله عليه وسلم وكيلها دول كمالها أقول خير بدن إلهي عز وجل أكتس اللوغو جعل يحين أبو النبي يقول ومساجد دول كمالها اللوغو نعب يحين أبو النبي يقول وأسواق دويا مويلي دولكي baa la kala fadlay oo maalmihii baa ilaahay kala fadlay oo bilihii baa ilaahay kala fadlo bisha bilaha ugu khayr badan waa bisha Ramadaan weeyaan maalmaha ugu khayr badan waa 10 dhulxijja weeyaan habeenada habeenka ugu khayr badan Nabigu Quraanku sheegay waa Laylatul Qadr weeyaan
هذا بني آدم كي بلوك هذا بني آدم كان والله كلا فضل إياك انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض بإلهين والله كلا سريسي بني آدم كان فضل الله عز وجل بعضهم على بعض فضل الله الغني على الفقير المسلم على الكافر كمسلم كأيو كفل بدنيا قالكو كفل بدنيا هي غني أيو كفل بدنيا هي فقيركو كفل بدنيا هي كعافمات قلسية أيو كفل بدنيا هي كحنوسمو كفل بدنيا هي والله كلا سريسي بني آدم كان لأن النبي واكي صحابة كوري ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء فقراء المهاجرين وأمرك المدينة أسوه جرودين أي دبات المدينة كلها أنت حنون يا جاجو يا درلان يا هويلان أي فقراء المهاجرين أنت إسصور رسدين بالنبي قوي مادين عليه الصلاة والسلام لأن مركب النبي كل هذين ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم markaa bay yiraahdeen nabi Allah nimankii muuminiinta ahaa ee malqabeennadii jannada darajaadkeegii sarsare iyo naciimkeegii muqiimka ahaa iyaka ayaa la tago nooga fadli batay markaa buu nabigu sidee ku dhacday nigaga fadli batay in sheega waxay yiraahdeen yusalluuna kama nusalli wa yasuumuuna kama nasuum wa yatasaddaquna wala natasaddaqu wa ya'tiquna wala na'tiqu wa yahujjuna wala nahujju waxay yiraahdeen nabi Allah xaga salaada waan ka simanahay oo salaadina ma dheero maalqabeennadu xaga soonka waan ka simanahay oo soonkana maalqabeennadu nama dheero laakiin waxayna dheeraanayaan waxa weeyaan jihaadkii bayna dheeraanayaan laana jihaadka dhaqaalaha ayaa lagu baxaa xajkii bayna dheeraanayaan xajka dhaqaalaha ayaa ku baxa cidqu raqaba adoomaha in la soo gado oo dib loo xoreeyana dheeraadeeno deanako adoon lacagan ku soo gadano dib ugu xoreeyna ma haysano cimradii bayna dheer yihiino dana cimradii bay ku tagayaan zakadii sadaqadii bay bixinayaan anaguna zakadii sadaqadii waxaan ku bixayno ma haysano yiraahdeen markaa buu nabigu sallallahu alayhi wasallam waakii ku yiri afala uallimukum shay'an tasbiquna bihi man ba'dakum tasbiquna bihi man sabaqakum wa tasbiquna bihi man ba'dakum hada al-ma'ni suha ma inii sheegaa buu nabigu sallallahu alayhi wasallam amal kuwa inaga badiyana aad ku gaadhaan kuwa inaga dambeeyana aad kaga sii badisaan oo san qiyaamahana aysan dhici karin qof inaga fadli badan inuu yimaado ilaa mid sameeyo taadinkuna aad sameeysan oo kala mooyaan markaas saxaabadu yiraahdeen ha noo sheeg waxa uu nabigu yiri kaleey salaatu wasalaam salaada markaad ka baxdaan buu nabigu yiri 3 jeer baad oranaysaan subhanallah 3 jeerna waxaad oranaysaan alxamdulillah 3 jeerna waxaad oranaysaan Allahu akbar dadna markaas xadiiskii nabiga sallallahu alayhi wasallam intay ka qaateen ay aqaladoodii kula noqdeen zamankaasi waxa caado iyaka u ahayd tabliiq risala wax la yiraahdo intay imika xadiiska ay maqlaan dadna ay ku amal falaan ay isla markaaba dadka gaarsiin jireen oo manhaj nabawiga ayaa sida dhigaya manhaj rasuul alayhi salatu wasalaam manhaj nabawi fi da'wati ila Allah azza wa jalla wa fi at-ta'lim wa at-ta'allum wa mahay hadda ilmiga nabiga ay ka maqlaan may haysanaynin amalkay ku weeleynayeen dadna markaas ay umada markaaba u sheegayeen Abdullah ibn Umar ibn Mas'ud radiyallahu anhu ayaa oran jiray 10 aayadood markay nabigeena dushiisa ku soo degto maanu dhaafi jirin 10 ka aayadood ilaa aan barano oo ku amal fallo oo waxayna farayaan la imanno waxay naga reebayaan aan ka reebtoona mooyaane 10 ka aayadood maanu dhaafi jirin buu yiri sida zamankeena maanta dadku aqoonta u rusanayaan aysan ugu amal falaynin sidaas oo kale ayagu ma hayne in yar bay nabiga ka baran jireen dadna intaas ay ku amal fali jireen in yar نحن إلى قليل من الأدب أحوج إلى كثير من العلم عبد الله بن مبارك رحمة الله عليه يا أورنجري طلبنا الأدب حين فاتنا المؤدبون
aadaabta islaamka waxaan ku baraarugnay waxaan ogaanay diinta ku camal falkeegu inuu ka muhiimsan yahay wax walba laakiin goormaan ku baraarugnay yiraahdeen dadkii akhlaaqda lahaa dadkii dhaqanka wanaagsan lahaa dadkii diinta ku camal falay markay dhinteen ay naga hor dhamaadeen ayaan ku baraarugnay nahnu ila qalil min al-adab ahwaju ila kathir min al-ilm bu rajul ibn mubarak aadaab yar dhaqan wanaagsan oo ku dhaqano ayaan uga baahi badanahay bay oran jireen taabiciintu oo qoom badan oo yeelano zamanka ka hadalka diintu uu koobna laakiin ku dhaqanka diinta ayaa badnaa hadal haynta diintu ma badnayn laakiin maxaa badnaa ya ku dhaqanka badnaa zamankeena ka hadalka badan hadal badan baa naga duubay laakiin inta ku dhaqman ilaahay ba og waxa aan ku hadlaynaa qiyaamaha wala isweydiina ogaada qoladaydan wacaad lagu ibtileeyay inay dadka wax u sheegaan wala na weydiin qolada dhageysa jahal ee dhageysa naga taageertan iyakana wala weydiin qiyaamaha qola qayilaysan maalin dawlad ku qaadno markaas sheekh Xuseen hadda xadiiskaagi baa noo socdo taageerayaashaadan hay guuladeen warkaas ku waa khayr horta waa khayr baad dhageysanaysaa oo daawal bahaasa iyo balaayo kala dhageysanaysaa marba hadaad culimada hadalkooga dhageysanaysaan way fiican tahay laakiin taageerayaasheedu waa inay isbedel keenaan mise inay wax duubtaan u baa isbedel baan u baahanahay نحن إلى قليل من الأدب أحوج إلى كثير من العلم ابن مبارك رحمة الله عليه بأرجر عبد الله بن مبارك أدب ير dhaqan diineed oo yar oo kooban oo ku dhaqanaan uga baahi badanahay in badan oo maqallo in badan oo barano lidalika ahdiga nabiga عليه الصلاه والسلام ka hadalka diintu uu koobna laakiin ku dhaqanka diinta ayaa ballaadna way maqlayeen way ku amal falayeen markaaba dadka walaalahooda u sheegeen iyagu saddexda way wada socdeen barashada diinta iyo ku dhaqanka diinta iyo diinta shaqadeedu saddexda ahdiga nabiga ma kala hadhayn ku dhaqanka inay bartaan waajib sharci ay u arkayeen ka hadda soo islaamada diinta markaaba baranayeen inay diinta ku dhaqmaan oo aayada quraanka ku soo degtay nabiga markaaba ay cilmi ku weelayaana sharci diini ay u arkayeen iyagu inay markaaba umada u sheegaan dadka khayrka si gaarsiiyana sharci diini ay u arkayeen iyagu marka nimankii fuqaradii muhaajiriinta ee nabigeenu عليه الصلاه والسلام oo xadiiska u sheegay isla markiiba xadiiskii may haysane bal xadiiskii markiiba magaalada Madiina u gaaray aqal walba xadiiskii waa laga sheegay nabigu hadalka buu yiri nabigu sallallahu alayhi wasallam sidaas uu yiri dadna markaas arag malqabeenadii xadiiska uu soo gaaray ila wax ka macinay ma jiree markiiba yakuna adkaartii bay bilaabeen bacda kulli salaa inay laazimaan saddex iyo soddon jeer subhanallah saddex iyo soddon jeer alxamdulillah afar iyo saddex iyo soddon jeer allahu akbar inay yiraahdaan dadna markaasay ku soo noqdeen nabigeena عليه الصلاه والسلام markaasay yiraahdeen ya rasuulallah walaalaha ya xadiiska noo sheegtay ayakana xadiiska uu gaaro wali xaqi xoolaha wayna dheer yihiin iyo xaqi dhaqaalaha markaabuu nabigu yiri dalika fadlullahi yutihi man yasha wallahu dhul fadl alazim dalika fadlullah ni'mal malu salih lirajul salih baa la yiri maadaama rag wanaagsan oo alla ka cabsi la yihiin de maalkoogi maadaama ilaahay ugu dhawaanayaan oo daacada u adeegsanayaan oo zakada ka bixinayaan oo xashka ay ka tagayaan oo dadka adoomaha la adoonsanayo intay soo gataan ay xor siinayaan xorriyad ugu deeqayaan waa fadli ilaahay oo ilaahay qofku doono siyaabo rasuulku ku yiri saasa zamankii nabigeena sallallahu alayhi wasallam qof walba makaanadiisa loo sheegayay dadkuna waxay ku kala fadli badan yihiin ilaahay dadka deesaga kala fadlay حتى النبي ذا لك لفضل أقوم تلك الرسول فضلنا بعضهم على بعض منهم من
كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس إلى آخر الآية. تلك الرسل رسل الله أصدر بالأولياء أي لك لا فضل لك لا سريسية رسل ومحل لغو كلا فضلي إبراهيم عليه السلام خلدا لغو فضلي وخليل الرحمن بالغا دغاي واتخذ الله إبراهيم خليلا. موسى عليه السلام محل لغو فضلي وكلم الله موسى تكليما. محمد عليه الصلاة والسلام محل لغو فضلي وكان فضل الله عليك عظيما. عيسى محل لغو فضلي روح دي إلهي عز وجل لغا أبو ريسقا بلا آبو برقاسا معجزات وحا لسيه خوارق العادات. بشرك وحي يقانين وكلا دلاعينيس بشر عقلك بني آدم كوحو يقانين وح كدون وعقلك بني آدم كدنبا جاحيسا معجزات عين كاس النبي عيسى إلهي قعميسا وكسو الظاهرية. marka anbiyadii baa lagu leeyahay waa la kala fadlayba dhulkii baa la kala fadlay oo maalmihii baa la kala fadlay oo diinihii baa la kala fadlay oo afdalu diin diintan islaamku waa min afdal al-adyan. لو كان موسى حيا لما وسعه إلا اتباع النبي وكيلها صلى الله عليه وسلم. قالت عمر بن الخطاب رضي الله عنه نين يهودي أيو كسو قادة ورقد كلمات توراة كم إذا أيو كسو قادة مركب النبي أولي مدو كويري نبي اللهم كقول الله خريا كلمات كاس توراة أيا نمكا يهودي كسو قادة بل هايكتدي وجهي نبينا عليه الصلاة والسلام أيا اسبدلي لأن مركب النبي صلى الله عليه وسلم أيو يري يا موسى يا عمر كلية ما هنا النبي هذا الخطاب عامة وإلى قيامها أصول إنه أبو النبي نوجي ديو وحيري أنا ما أنت النول الدوية الجوجا ودحدي إنه كسوغان هذا النبي موسى إيمان لها وضانيك يجتكي لهيدين والنبي موسى راعي لهيدين وهذا الله ذنب النبي وهذا لمتين وطريق حق واتكوعتين لو كان موسى حيا لما وسعه إلا اتباعي هذا النبي موسى نولان لهاب ورسولك يري وذاك لما قادنا وضد داس سوق قاد لهاب ورسولك يري. جميع الأنبياء والمرسلين نبي كستو أدون كان إيمانيي انتو سن إيماني الرسالة أن لو سو ديبن أيا رب العالمين كبالا كقادون لغو يري أدقو كتابا كو ديبني وشريعة دانا أن كو إذني حدي نبي محمد وأدوية دي ما دادو جوغا إن الشريعة دي سراعي والنبي نمدي سقيري ودي ساقا كو دبضيين ودريقة دي سآد ماري بلن قادبا إلهي نبي والبا كو يري مركز النبي والبا إلهي يرتي وبلن كو قادو يري وإيقاب بلن الله ورتي وحن بلن كو قادايا أنا رسول النبي وشريعة لا يديبي هادو نبي محمد أدون كدوشيدا igu soo gaaro inaan isaga rumeyn oo raaci ayaan ballan ku qaadaya buu nabi walba ilaahay hortiisa ballan ka qaaday. marka nabigeena calayhi salaatu wasalaam anbiyada ilaahay soo diray shakhsiga ugu khayr badan oo ugu fadli badan waa isaga. manzilada jannada ugu sarreeysan isaga la siiyo ugu منزلة جنة أقصر رئيس الوسيلة حديث وكي النبي يقولها عليه الصلاة والسلام أذان كم مركز مقلسان مؤذنك وحو ليه كذا برد هذا أبو النبي يقولي لأن أذنكم مركم مؤذنكم لما ينا أنا جاي يوصل لي وسيلة إلهي يودي وسيلة ومحي ومنزلة جنة كتها الله النبي يقول أعلى منزلة في الجنة جنة إلهي وأبور ومنزلة أقصر رئيس ويان ودعاء مركب أذنك ولما سنة إلا قد دعي اللهم رب هذه الدعوة تام صلاة القائمة آت محمد الوسيلة آخر كيكا منزلة جنة أقصر رئيس النبي قلنا إلهي سي وتفضيل إلهي بفضلي قرآن كانوا قرآن وحي كتب سماوية سماده كسو دكتور دن قرآن كأقول شرف بدنا أقول قيمة بدنا قرآن كأنه أقول الوحي المنزل قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون وإلهي واك قرآن كأنه أقول شيء شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس
وبينات من الهدى والفرقان بينات بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون قرآن كاس شرع كتب السماوية أردن وكلامك وفضل لبدن قرآن كاس وخلاصة الأديان بعلم دولادين خلاصة الأديان وعلى وحي الشريعة الدين إلى هاي سماده وككيني خلاصة وقرآن كريم كا خلاصة القرآن كنا بالليلي وسورة الفاتحة ويان سورة الفاتحة خلاصة يدنا وحويان وإياك نعبد وإياك نستعين قرآن كي لفتي ساك لفضل بدن وقو آية القرآن كأوجوين وآية الكرسي سورة القرآن كأوجوين وسورة الفاتحة سورة الفاتحة أم القرآن خلاصة الأديان والقرآن كان لغو سوكوبي إنجيل هذا دون تبع علماء دوليه سورة المائدة أخرسه توراة هذا ضبعتين هذا وقاته سورة البقرة كده دون إنجيل هذا ضبعته سورة آل عمران تق زبور هذا دون تنا الأخرسه جزء عمه ولا أخرسه لأن الزبور ودينة النبي داود لو سو ديبي موعده بدن كده جزء عمه هنا أحكام بكما هلا أنت بدنه موعده كهلا جزء عمه أبورك إلى حيث خلقه وأبو ربك ورما سماواتك جنة نارتا آخرة قيامها نكدونا يا ابو النبي يقول ما ركتاني نكدونا يا إنه أركو يوم القيامة كرأي عين آخر يبقى سورة داسي سورة عامة سورة النبأ إذا الشمس كورت هي سورة إذا السماء انفطرت سورة ذاها كويا على جزء عمها وحكى الرميان انتو دبدر وموعده آخرة ذاك حسوسينيان جنة ذاك برارجينيان نارتك كقدقيان يوم القيامة كورميان مالك قيامة سلوك اللي بيحدونك ورميان زبور دين النبي داود لو سو ديبينا بدن كيغو موعده u badnayd sharaacadu ay ku yareed balay marka quraankii baa la kala fadilo lagu leeyahay aayada quraanka ugu weyn waa aayatul kursiy dad akhrisato habeenkii markaad seexanayso ilaa waagu ka bariyaayo malag baa saa ku dul fadhinaya ku ilaalinaya malag أبا هريرة رضي الله عنه حديث كي يالله في السنن إن آيات آيات القرآن كأجوين قفك آخرستنا إلهي أقدن عيسى لقى إلى علينا يو شيطان بعلم قبر الشيطان شياطين الجن بعبرت علم ما حيد أبا هريرة حديث كديرا والنبي صلى الله عليه وسلم وحل صار أبا هريرة إنه إلاليو زكاة المال كتمرت الله صوق هذا يراشين كبو النبي كود أدقو إلاليو وقار كقبو وحكحراسي دتك كلام مارك تاني كحراسي أبينك هل كانوا جوجي بيقولون بان أركب مارك تاني حيوان يمدي أو قرنايا مركزان قبتي قال لأرفعنك إلى رسول الله رسولك إلهي بان كوجين وكوجين لأن مركزه إيه عوضو يقول لي من فقير أو مسكين أو صاحب العيال أو قاجونا يا يعني هي كوكسو نغني ما يهديت ولا مروني سيدا لأنه وسيدا يي واقو مركو بريب النبي يقول عليه الصلاة والسلام يا أبا هريرة ما فعل أسيرك البارحة حاليت ولكي الحدي قعنت كدك تمحوك وقسمي ويا رسول الله وإيش أشكتو ذا وحو كعودي إن ما ركتاني أبد أوليه قاجي باحي أكينتو ونأي بلن قاد إنه ما ركتاني يقصوا نقون دونين مركب النبي يقول وبين على ويان وقصوا نقون دوناي هلكي وفر يسبو كيرو إلالي نبي مركب وحي باو شيغيا هذا habeenki ayaa halkii baan u fadhiistay habeen labaad hadana habeen saddexaad ilaa aan ku iraado mar walba wadi dhaarataay oo waxa tiraahdaa ma soo noqonayo hadana waad soo noqotaa beenaala tahay maanta ku deyni maayo nabiga ku geenay kaleey salaatu wasalaam dadna markaas uu ku yiri aayad baan ku baraya kitaabka ilaahay ku taala hadaad aayada aad akhrisatid hadeeto la arki meesad aniga xagga ilaahayna waa laga ilaalin oo xaaris baad helaysaa xagga ilaahay ka ilaaliye maanta aayada iga baro oo dib damana ku soo noqoni maayo idda
الله لأن آيات القرآن كوشة آية الكرسي مركز أبا هريرة النبي أوتجو وشيء مركب النبي يقول سقوا بين بدنا أي حال الركوع شيء يا أبا هريرة هبين صدق حدا هبين أردن كي القبر نسيت سيدين يسعدوا هم قرنا يسمى شيطان كي بهاب النبي كقولي آية الكرسي ومركب وآية الحفاظة وأنا مستحب بعد الصلاة والبين الأخرسته وفضائل كي النبي قال نو شيء يدو آيادا أذيك كو إلالين إيسا صلاة إلاك صلاة لغو إلالين أي النبي كو شيء فضائل كاللغة هلايو إلا الشقادة أدوية مركز شقا مالك قبانيسو مش قايدة انت قادنيسو وإن لغو شيء حدانا لغو شيء بشاركات قادنيسو نيت كو شقيني ميسد لذلك ما دام الصلاة دي أتكا بحد الظهر إلى صلاة عصر لغا قادا يو بلسي إلهي كو إلاليو وملايكتو انت كو تمادو أي قار كاقبتو آية الكرسي وانا خرستا آية الكرسي قفل لغي لغي هلي بنبي قول نو شيء وحيري صلاة مركا وكبح قفك آية دا أخرية بنبي قولي إستاقي الجنة دا قلت يا وحا أودا حيسا كليا إنت نفتو هالك أي كبحيس جنة دا قلت يا محاك أقدي من نفتو انت كادا عيسو marka quraanku waa dawo quraanku waa ilaaj quraanku adoo ku ilaalinaya diintu aday ku ilaalin lacagta adaa ilaaliya oo lacagta bini aadamku u ilaalshada laakiin diintu qofka muuminka iyada ilaalishay ugu qowlu umar wayaan aw ali المال تحرسه والعلم يحرسك بلدي حولها أذى إلى لنا ومال أذاك بتكون ردنيسا وبانك أدقانيسا ومال أذاك وضدك وأركين بتكون آسيسا لكن علمك دين هذا براتوت كل دقنتو دينتو يداكو إلى لين دينتو عمرك كو إلى لين ودقالها كو إلى لين وعقلك كو إلى لين وأولاد هذا كو إلى لين ونولش هذا الدويدة دعدع ما لا يعنيك يزلات كنولش هذا كاجا إلى لين دينتو هذا وحكو تري مويانه هذا دينتو حمد تريس دينتن إن يدا وحنا تريس إنك لكن قالت كأنك دعي ما أنت وحويان ولي أن كسر نقول لنا هاي إن دتك قارب أو هذا الدين تنا وحقب ثاني يكون أوه مدرسة باندسي ما أدار دستي ما عادوا دستي أدار دستي مدرسة ده سكيت باندسي ده كور وفي عنت هاي لكن أدار دستي من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة نك إلهي درتي أقل أدسا مساجد بعد إلهي درتي أدستي هذا إلهي أقل جنة كعقد السيا مدرسة بعد أدونك إلهي درتي مال وغفرتي هذا إلهي أقل جنة وكعقد السيا قف مسلم خيرك أبويا دي خيرك أبويا دي أديك كيف يدسني اللقو قرية مسلم بعد صدقات سي مسكينة صدقات أوكوسي قاضي وحوالدي آخر رصيدك تيوقو حوالدها أدونك أنا قانا سوما يا حوالد آخر ما تقرأ والزكاة هي صدقة ويان بالمسكين عمالين أنه قاعد وضنوا سوء سكاي أكتاجو بركاكو إلى السعودية والعقها يلعقتي مصوصاري لعقت جيبوتنا waxa ku jirta lacag berbir ah 5 boqol oo faran 250 faran 5 boqol marka waa taqriiban waa $2 iyo badh birta kale labaadna waxa weeyaan waa $1 iyo badh birta saddexaadna waxa weeyaan waa $1 taqriiban waa thuluthay markuu lacagta u soo saaray buu tii u yareed buu yiri hasiisid marka kii miskiinkuna wuxuu yiri war xawaaladii aakhiraan aheed tabadan isii wada ku sii qaaday المساكين دلفتكو بريان يقولون فرصمدي بين الله فاهمين وقتها إن بخلاء نقول نبي فاهمين فمن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء إلهي بقرآن كل شيء الزكاة هذا لبح ويدو وصدقة لبح ويدو ومسكين لدسي وحكود درسن ويدو ودين هذا وحق الشن ويدو إلهي كل هي هذا نفط هذا خيرك كلب خيلي أقوم إلهي وغني وكد يقطون يا إلهي أديك عبادتنا وما بحنو صلاتنا وما بحنو زكاتنا وما بحنو صومنا وما بحنو علمنا وما بحنو دعوتنا كو قيلنا وما بحنو إنك دينت أباهن مويان دينت إنك يدو إنه وما بحنو دينت أذيكو إلالين دينت أذيكو عزين
حسنوا أموالكم بالزكاة داووا مرضاكم بالصدقة استقبلوا بأمواج البلاء بالدعاء. طب النبوي يكون شاقي ابن قيم الله نحرسته بلايوين كضبيله أي وضعن بالنبي يقول الدعاء كله ارتقب النبي يقول حوله إننا الزكاة وقدق النبي يقول حرس الحد هذا دوني حولها قلنا يكون نقدان حولا محفوظه إلى سنة كبعية الزكاة ونلالي داو مرداكم بالصدقة كيني نقبك وضعنا صدقة كدوي بالنبي يقول صدقة داد بحسي كي كابو كي بيكود وينيسا زكاة داد بحسي حولها قيب الدريادة كاقد بيسا بريادة الله تمدي بلايس وسعطاء الهي كاقل لحين يا بركة دينتو ماذا وحكوتر سامسادا وحتريا يا دينتو هذا وحكوتر سايوغو دينتو هذا وحكوتر إلهي وغني أسمادي سوحا كمدة الغني الهادي هنونية كواحد يوايسق عيد كلامها هداية التوفيق ده النبي محمد بلغ دي دول يرادو ما هيس هنونك هداية وافجنتها النبي قال لقد ديدي مركو أديركي وقول لقينا توحيدك كلها أدير كلمة دائما قشيق قيامان كو شفاعات قاضية أدير مركاسا إلهي كلها إنك لا تهدي من أحببت كذا دقوا جعلاتنا هذين كرتت بالنبي قال لقوله صلى الله عليه وسلم هذا عد قف هذين يو نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام أدرك أبو طالب هذين لها إبراهيم عليه السلام أبيه بهذين لها نوح عليه السلام إنك سبوا هذين لها أنبياء دورنا في رسالة القرآن هادي وإلهي جل وعلا نبينا صلى الله عليه وسلم وحو آد وقد ذالي أذيرك أبا طالب نصو إسلام لكن الله ما قدر الهداية ده أد بوجع على أنه هنون أذيركي فتح مكة مركي مكة الله فرطي أبو بكر الصديق رضي الله عنه أبيه أبو قحافة وحربها سعدادين ومدحوا عدادي ودق او غبوبي او اندلا ايو غعنتا انتو سو قاداي النبي او كينا عليه الصلاه والسلام وامركي ددكي مكه ku haday ay badankoodu wada islaami doonaan lana Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu wa saxaabiga kaliya baa la yiraahday isagii saxaabi buu ahaa ubadkiisu asxaabu rasuulillaah bay haayeen abihi saxaabi buu noqday hooyadii oo la oran jiray Ummu Ramaan saxaabiyad bay noqotay wa saxaabiga kaliya labadiisii waalid ilaahay muslimiin u ka dhigay ubadkiisina ilaahay wada islaam uga dhigay أبيه يضقوا قبوبي بقعمه أنتو سوق بتو سوق تكبيه بركاسو نبيك أوكينا عليه الصلاة والسلام نبيك قريشي صف وجرتو ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا بركابو نبيك سركعي واي نبيك أدبو احترام جرى أبو بكر الصديق وايو أبو بكر وانك كليا مالنت قريش نبيك أي قويسي دقالها أي كقوستي نكي دقاليه سنبيك الله سمي بوها أي نبي الله دقالها ننوان هايستو sidaad anigu aan u isticmaalo adiguna waad u isticmaali kartaa waxa doonto ka qaado ku yiri maalintii nabiga Makka laga saaray shakhsigii nabiga godka la galay buu haaya la baxay marka nin qiimo weyn Abu Bakar inna markaabu u keenay abihi oo duqa markaabu nabigu ixtiraam Abu Bakar ixtiraamay ayuu yiri duqa ma dalkiisa ku dhaaftida Abu Bakar ana u tagi lahaay oo ka fudude markaabu dhimay ya rasuulallah cilmiga waa loo yimaada adiga waa lagu imane adigu cid u tagi meesid buu ku yiri waa lagu imanaya adiga markuu gacanta u saaray gacantii Abu Quhafa markuu nabigu gacanta u saaray ee tawxiidka uu nabigu u laqinayay Abu Bakar lilma ka daadatay marka nabiga ku yiri calayhi salaatu wassalaam يا أبا بكر ما أنت ومالين فرحة محمد تقول له أويسا يا رسول الله أنا مركان فرح لها مكوشة وحن فرح لها هلك أبهاي ما أنت أوجوجو أبو طالب وأذير كايو جوجي لها وأدوك فرح لها يد بنكو فرح لها أبو كيد
maqaamka Abu Bakar uu gaaray bal eega inuu nabiga raali geliyo Abu Bakar shakhsi la gaari karay maaha حتى شعورتي النبي محمد بعد بوداينو بنانك ولا صوبح درينك هلك أباهي ما أنت وكإسلام يوجوج أباهي أذرك أبا طالب وجوج لها وقعنت كوسار لها وأشهادا لها وذلك أمرك أركت أذرك يكو إسلام يا فرح لها أيان أنا قلنا فرح لها يا رسول الله لكن إلهي ما قدر إنه أذركي إسلامه إلهي وحو قدري بلال وحبشي إنه إسلامه سلمان وفارسي إنه إسلامه صهيب الرومي إنه إسلامه وحشي وقاتل حمزة ونجي النبي محمد أذركي الدلية إنه إسلامه إلهي قدري مركا هداية دايا هيا أرياها يا هنونك إلهي ويديس مركا وقفلوا بهداية إلهي ويديسوا اهدنا الصراط المستقيم والدعاء ugu qiimo badan ee quraanka ku soo rortay ducadaas ya Allah dariiqa mustaqimka nagu hanuuniyo kii yara kii weyna kii malqabeenkii taajirkii madaxii mijihi masjidka markaan soo galno ee laba ragcad tukanaynaba baahida kaliyan hor ilaahtiisa hortiisa aan ku sheeganaa waa hidaaya ilaahu dariiqa mustaqimka ay mari dariiqi dushii aad ku way dushooda aad ugu nicmaysaad ka yeeshay al-anbiya nabiyada iyo shuhadada iyo sidiiqiinta iyo sulahada dadkii aad jecleed waa kuwaase jidka aad marisay ilaahu annaka na mari oo ilaahu hana marin kuwii aad adigu aad u cadhootay waa yahuud iyo kuwii jidka toosan ka lumay ee baadiyoobayna wadaday qaadana ilaahu naga leexi baad ku ducaysanaa maalin walba مسجدك مركز جوجتد اهدنا الصراط المستقيم لكن بنانك مركز أنو بحنو دقنك إسلامك كوما دقمينه لبدا أن كعود باللسان إن طريقك إلا إن مريو أيان نلشوا دي ما تنقض ديانينا ودليرة إني كود ديانا إساء وقبله إني كود ديانا يام وما ركتاني عروسدي كجد ديانينا وسفرك كجد ديانينا ونرقادشدي كجد ديانينا وتعليمتي كجد ديانينا ونيك أنوار كان إنه هرمر هيان بل لو ما أركب إن هرمر كوا هي النبي محمد الصحابة ديسو مسكيت قد احنا اهدنا الصراط المستقيم خارج المسجد مركا نو بحرنا عيد كلام ku dayanayna maanta haday dhar qaadasho tahay cid kala ku dayanay haday timo xirasho tahayna dad kala kaga dayanay haday tarbiyada awlaad noqotana dad kala kaga dayanay haday aroos tahayna dad kala kaga dayanay haday manhaj tacliim haday tahayna dad kala kaga dayanay jaamacad bay ka baxayaan dharkay ku qalin jibinayaan bal sheeg naas weydiiseen dharkay ku qalin jibiyeen ardaydeenu halkuu inaga soo galay yaad ku dayanaysaa diinta islaamka sheegata looma baahna islaamnimada sheegata ku dhaqantaan u baahna cid diinta ku dhaqanta loo baahan yahay maanta ku dhaqanta badan baa sheeganaya qabiilka la sheegtaa laakiin diinta waa lagu dhaqmaa Soomaalidu waa bal cagsi qabiilkay ku dhaqantaa diintana Soomaalidu way sheegataa qabiilka ku dhaqana qabiilka waa ku dhaqana waa u dagaalana dhaqaalaha u bixina waa u ficiltana laabtaan iska garaacna laabta diinta islaamkana waa sheegana boqolkiiba islaam baana جغرافيا بقول بعد قرن تهاي لكن صلاة بقول كيم زاد تقطع قبيل كيناس شيغتي شريعته كو جديسي لتعارفوا لا لتقاتلوا معها ولتعارفوا لكن دين الاسلام كمركay noqotanahe لقد انزلنا اليكم كتابا فيه ذكركم افلا تعقلون ان هذا القران يهدي للتي هي اقوم وان هذا صراط مستقيما فاتبعوه قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله اتباع الله بحي اتباع sheegata maaha itibaac ku dayasho ku dhaqan
وهلك كوكلا وعن إنك يا سلف هذه الأمة مسلمين تما أنت الزمن كان أدوية كنول أيقو دين الإسلام كايستي دليلين دلسيين وإلهي غيرك ما أنت عبر أنا جماعة هو سيستان وايو لأن شرعينا كوما السعودان عقلينا كوما السعودان مسلمين تما أنت بدنا عقل دتك لا إليه ما كسرنا ما أنت markaabay koodhanayaan wadaadka waqtiga lama socdo ana baaqi ku yeeshay boqol maalin dheeraad waqtiga lama socdo adu aakhiro baad ka hadashaa warkii aakhirada ina dhageysatay diyaar umatiida ka war intuu qalbiga engegay hadii ilaahay lagala hadlayno aakhiro lagala hadlayn oo islaamnimada ku dhaqankeyga lagala hadlayn maxaa lagala hadlay marka quraanku saddexda buu ka warramay دعوة القرآن بصدح ذا عدينيسا قرآن كدتك إلهي حق سوق يدا قرآن كدتك آخرة وقو يدا قرآن كشرعك إلهي بكوق يدا يا كليه وحوا معروف لك عليا وحنا ومنكر كرب توبة بقرآن كليه وأنا ماشي أقول كلا دونا إنك يا سلف هذه الأمة هذا الكابدن هذا الهينتا كهذا الكدينتا أي زمن كان بطي لكن كردقة كدينتا وأنت وين نقول يريح قف الدينتا إنه هذا الهيا وكشك يا دين أقول كلي أوبا هنتهي لكن قف الدين إنه كردقة ما إيمان بأوبا هنتهي قف إنه الدين كهذا لا محوبا هنتهي أقول علمي بأوبا هنتهي لأن عالم أوبا حكم شيء كره waxaad sheegaysaa inaad aqoon u yeelataa wax walba sheeg lagu ma leh inaad dadka diin u sheegtaa oo diin hadalkeega aad uga hadashaa aqoon bay u baahan tahay aqoontuna maskaxday degtaa laakiin diinta inaad ku amal fashaa iimaan bay u baahan tahay iimaan yaqiin Allah nasiyo لذلك إيمانكم مركز إن لو دلوا بهاياس إيمانك هذا حقيقة دي سهشد إيمانكم وكو إلالين مركع هذا الدين تبارته الدين تو وكو إلالين هذا الدين تكون دقته الدين تو يدا كو إلالين هذا الدين تدقالها قاد قشست الدين تو يدا كو عزين هذا الدين تأفعل تنت الدين تو كربي كو قاضي مدير أو كومن أي النبي محمد صحابتي سنبي قال له جوجين أما الدين تدل أي قشدين إلى قيامها لو دعين لله إله كرر للنقض أي مسا أمة كدم بيسي أصحاب محمد بل واحد هاي الشيء قواكاس تذكر براهنا الدوية كل سوكر لي عيد الدعين سماد ما قشين فرماد ما قشين هجرت ليارده والله منافع صدي ومواصلات الدوية دي لسكاقات الله بي فديدين ترانده والله مد قوارده والله مد اتصالاتك والله مد لكن دادك آلاتك براها السمية يوردن عد تقانو ودعين سوالي ما دركتين لأن بره سيدي التقدم لهايين بكشغيين إلهينا وأفري علم الإنسان ما لم يعلم وعلم إلهي سيويان لما إنكرايو لكن النبي محمد صحابة ديسو وحيكو كشغيين بني آدم سيدي كوهاقاقي لهايين بكشغيين dadka bashariyada dariiq u jeexeen dariiqi qofkan adduunkana xaqiisa uu ku heli lahaa aakhirana naar uu kaga badbaadi lahaa bay dadka u horsadeen dariiqa saxda markaas adduunyada waxba uma arkayaan iyagu haday biirtana kuma farxaan haday ku yaraatana kama walwalaan halka zamankeenan maanta haday adduunyadu biirtana qofku uu qooqaya haday adduunyadu ku yaraatana qofku uu murugoonaya maanta haday adduunyadu ku soo badato ilaahay ba ka magan galayeenba saxaabiga Umar ibn Sa'd buha al-Ansari Umar ibn Khattab lacag daba diray baa leeyahay كوفة أنتو كسر نقد أمير أيوة يروان سود دالي أنا قوين بدلنا وان صور شقية آخر العمر إنه وان كجرايا هنسك عبادة استيقظ مركز عمر كوين مايا أمير المؤمنين وحق هذا يقول هذا أنا وان كأداعي أنا ما أنت احترامه إيجي لأنت وايه وان كايا لا يبودي لأن مركب بوريجي سيسكتجي
ninbuu markaa ka daba daruuri lacagta qaado u geeyo haddaad aragta ninkaasi waayo dhulka uu ka yimid dhul xoolala ayuu ahaa wax lacaga kama keenine waan ka shikisanahay ka daba tago haddaad ninka aqalkiisa markaad gasho adduunyo iyo lacag iyo dhaqaale iyo wax la cunayo fiican dad ku aragto wax lacaga hasiina ii soo noqo buu ku yidhi haddaad ka aragto noloshiisu inay tahay nolol adag oo cidhiidhiya oo rafaada oo caynkaas oo gaaja ka muuqatana siibu uu yimiday oo laba cisho martii uu noqday baa la yidhi wuxuu arkay ninkiyo kimis engegsan khubzi engegsan iyo biyo isku cunaya markaa buu warniyo hanagu ag dhimanine dadka kale naga nolosha fiican martii uu noqo buu wax kale agteeda ka heli meeside la xooxda engegsan iyo biyaha man cunaaye adiguna nin dayfaatahe calooshaas u ka dhagiyo kari meeside dadka kale u tag buu ku yidhi waa ninka Ciraaq ka soo noqday amiir ayaa shilin lacag aanan haysan madaxda zamankana ee doorta bay ku leeyihiin oo ku dooranay maxaad qaban marka yaa qalbaan ciyaalka u dhisan buu koor doorta maxay ka dhigan tahay aan shaqaysto ana shaqaysan weeyaan hadduu mas'uuliyadda uu garanayo wasniga iyo culayska ay leedahay doorta ma yidhaahdeen uu ka baxsan lahaa وبحسن لها لأن النجا ما أنت مسؤول نقضة هبار النبي يدعى النبي لبضع مدن بقادم والنبي قلنا لبضع بكو هالله يري نكا أمد إذا تلا وقبتها أفضي دين إله أفضي دي السجب والنبي يقولي نجا كوات كين إله سجن كوات كين ورسولك يري والدعاء النبي يا هبار النبي لبضع حكم الحيان أبو رسول الله حلكو حي هاي بجرنيين عراق ودم بوكسر نقضة أمير شيل العجمة ما هيستو مركون نكي وأركن نكي تعبان سنة هنا لعقتي ووسط وصور دي بعمر أقول لعقتنا أمير كيوكا صور دي بقاضي بوكين عقاده بدن ويان مركا وسنوات دن وكون هلان كرو مركا سودي محان كدغا والله أمير كايدو جي وانا كو كيني ادي كو تالا مركا سو إنا لله وإنا إليه راجعون ساسو إنا لله وإنا إليه راجعون islaantiisii oo gadaashiisa fadhida ayaa tiri war ma ameerka muuminiinta ayaa dhimashadiisa lagu soo sheegay may masiibo ka weyn baa yaa timid dibiyo ma ciidankii muslimiinta xadka islaamka jooga la soo jabiyo laga adkaaday haddana may masiibo ka weyn baa dhacday buuri oo hadee labada aysan dhicin masiibada ka weyn ee dhacdad ka inna lillahi aysan maxay tahay wuxuu adduunyada socota aqalka igu soo gashay si aakhiradeeda ay iga fasaadiso inagu adduunyada ma ku faraxnaa mise waa كأن مصيبة نورقنا مسم ليلة القدر بنورقنا صحابة رسول الله ذات قلبك وجوه نكسنا الدنيا مركي أوتمادو وعيارك دباتنا قلك وصوغش حاسكيسونا قبل إلهي كل حدا بيحيد والتقية أو صالح هذا بيحيد وعيتني وما الدنيا كو سو غشها هو maxay waatan bay jiri waatan buu ku yiri kaale xoolaha la soo diray xageen geeya xaan ku qabta xaan ku sameyn karnaa waa kane وعيتني da ka saar aqalka waxay ku yiri da aqalka inaan ka saar igu caawin ana kugu caawin bay tiri soo fadhiiso ree fulaan waa agoon inta u gee hooyo u gee islaantaas waa armal ninkeygu ka shahiiday hoo inta u gee taas waa miskiinad xoolo ma haysato inta u gee kuwaas waa ducafa way bukaan inta u gee siday lacagtii labadooduba u qaybinayeen baa la yiri habeenkii bila cashay ku soo dhaceen labadoodii hatta waxay ku cashayaan kalamay soo harin baa la yiri laana odayga iyo islaantu zamanka meel kaliya u jeedeen inaga zamankeenan waa la kala jeedaa hadday islaantu aakhiro u jeedo odayga hadiyo u jeeda hadday odaygu aakhirada u jeedaan islaanta hadiyo u jeeda لذلك دشيني دحده ka baxeen marka ilaa labada waalid haday kala fikir noqdaan dhashu dhexda ka baxayaan way dayacmayaan salaf gabadh ninkeedii ba iyay ku aragtay oo kallahaya markaa bay ku tiro xageed u kallahday wuxuu yiri dawaano maharadii waxba soo raadin oo kasbi baa noo doondoonaya markaa bay ku tiri ilaahay ka baq ittaqillah ilaahay naga baq bay ku tiri wariya aniga ilmahayga gaajada adduunka waan u adkeysan karaynaa laakiin naarta aakhiro u adkeysan kari mayne luqmad xaraan aqalkayga soo galin bay ku tiri
aniga ilmahaygaas gaajada adduunyada waan u adkaysan karaynaa laakiin naarta aakhiro u adkaysan kari mayne luqmad xaaraan aqalka hayga soo galin waa zamankee dadku ay wada wanaagsanaayeen mujtamaca raggoogiyo haweenkoogu meel keliya u jeedeen ilaahay bay ku talagaleen inay la kulmaan aakhiro inay jirtay ku xisaabtamayeen markaa wax walba cunayaal may hayn waxay haayeen dad xalaal miradoo ilaahay ka baqaya bay haayeen dadkaas adduunka dhan baagtooda qiimo lama leh ka saara qalka Aisha radiyallahu anha ummul-mu'minin ayuu Muawiya u soo diray 80,000 oo dirham buu u soo diray lacaga wayna sooman tahay khadimkeegii qulaamkeegii baa u yeedhay reer fulaan inta u gee ala fulaan inta u gee ala fulaan oo agoona inta u gee waxay lacagtii qaybisaba waxa gobolka u dhacayo ka bila afura markaa buu ku yiri ya umma ma noo reeb khadimadeedii baa ku tiri hooyo ma noo reebtada afur markaas ay ku tiri adu ma sheegtada bay ku tiri waan iska looba anigu waxay nicmad ay helaan meeshay ku xawilanayeen waa aakhirada weeyaan laana waxa aakhira ku hormaray ayaad adigu leedahay waxaad adduunyada kaga tagtay adigu malihida ogow يقول ابن آدم مالي وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت أو تصدقت فأمضيت بنبي صلى الله عليه وسلم إن آدم وحولي حولها أبو نبي يقول مئات كل هذا يصدح مدون مو يعني صدح الرماد بعد حولها كل هذا هي وحكى لبا أذوق كملهد عنتات كعنتي أو دماتي يدرات كحرتي أو كجد البالي يوبي يا واحد لبح حدو آخرتك كاغا سي horeeyay rasuulku yiri saddexdaas xoolaha ka kuleeda xoolo kale kuma leeyahay adduunka marka hadan xoogeena aqligeena kartideena aan adduun iskugu geeyno walaalayaal qofku laba khasaaro ku dhaca khasaaraha koobaad wuxuu ku tabcayna adduunyada inuu kaga tagi baa la yiri khasaaraha labaadna baa la yiri aakhirada uu tagayn waxba kama horeeyaan لكن مسلم مركو إلهي إنك إنك دقا وإن فضل إلهي دين بو إنسية دين تا إسلام كمركا واحد نقو براروجين سوا معي ورلبضان إنودا أدقو أرلي دحي إلا دين تا إلا آخرة هذا كو إيغو إلا الدوية هذا كو إيغو بدين تا إسلام كولا دحي إلا الدوية كو إيغو إلا آخرة كو إيغو marka diinteena islaamka ee macaana ilaahay nagu deeqay inaan ka shaqeyno wal in laga shaqeeyo diintu istaahilaysa war ma istaahisho ya soo istaahilay meesho waana ka shaqeyna markaas marka dhageysta diineed looma baahna shaqaale diineed baa loo baahan yahay nabigeenu sallallahu alayhi wasallam shaqaale diineed buu ahaa asxaabtiisu shaqaale diineed bay ahaayeen taabiciintu shaqaale diineed bay ahaayeen rag iyo dumar ummadani diin bay u shaqeynaysay diin waa u dhinteen qiyaamahana diin bay la soo baxayaan iyagu diin diinta agtooda qiimo lahayd لأنه waxay garteen diintan qiimaha la qofku haduu qaato inuu qiimo u yeelan haduu qofku diin qaadan waayana qiimo ma la ogow waxa qiimaha ku yeelaysa waa diin waxa ilaahay kugu jeclaanaya waa diin waxa samada lagaaga jeclaanaya waa diin waxa nolosha adduunyada kuuga hagaagaysa waa diin waxa qabrigaad ku badbaadaysa waa diin waxa qiyaamaad ku nabadgali waa diin waxa jidka saraad ku mari waa diin waxa janno inaad gasho sabab u noqonay waa diin waxa naar lagaga badbaadana waa diin diin maxay tahay marka diinta ilaahay uu doonayna waa diinu saxaaba أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم دين الزمن كودي نولشو دا كم مقتيبة إلى هاي دونيا تا إلا جارا مركا لوجود داليا وح كلامها سيدين وجارنا دين ترجع أي أدونك كقاتين سيدين وقعدنا إنك هنا دين تود الله مدا taas marka culimadu ay leeyihiin waa in qofka muslimku diintan waa in laga shaqeeyo oo aan culimada kaliya lagu dayniyo macallimiinta kaliya lagu dayne muslim kasto shahaadanayo diinta xilba ka saaran
هذا دين تقادتنا ودنت هذا كشكر نعمة إلهي كسيه فمن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم ولما الدين تاسع هذا أبهن وقو إلهي هدودنا إنه أم الدين والدين كنا لا يو قرآن قال لنا وقول شيء شمبر هدهد لده وزمك النبي سليمان أدونك جوجي ودندن مجتمعي الدولة دنا ودندن كل حنول سببه هو نقطة شمبر قاسي أمة دارين سو إسلامته قوم سبأ قوم سبأ في زمن سليمان عليه السلام شمبر قاسي بالليدي جنود النبي سليمان بو كمدها وقون عجيب شمبر كا إلهي كو أبوري وحيوان كبال ليدي علمك حيوان كو أقونته ويلا دشان هل كبني آدم كنا أقونته أي برتان جامعة دوغا صوبحان بني آدم كو جهل بيلا دشان قابك أقلاد الله دي سمنا قان وان برنا قابك وحلود دوي من قان وان برنا لكن حيوان كبال ليدي أقونته أيك ويلا دشان قابك أقلك أودي سنين ويلا دشان قابك ما ركتاني أي اسكو دوينين علمك ويلا دشان لذلك وحال الشمبر كاسي هدهد وحو يقانا دولك انتو ايغو ماشا بيوها اي كدو يهين بو شيغا النبي سليمان بالليدي فقال ما لي لا ارى الهدهد ام كان من الغائبين واك قرانك الهي نوغو شيغي لو عذبنه عذابا شديدا او لاذبحنه او لياتيني بسلطان مبين فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين قرآن إلهي نوغو شيغي في سورة النمل سليمان عليه السلام جنوديسي شمبرها أيو أمر جري وعفاريد الله سعون جرتي وحيوانك الله سعون جري مركا ما دام جنود النبي سليمان أي بدنتهي ماشي بيوها أي كدو يهين شمبر كابو ويدين جري بالليدي دانا مركو يدال هالكاس بيه انت أجران انت أصو متر دانا مركاسو شمبر كاسو وعو سليمان أمر جري جنكي يا شياطين تي عفاريد مركا بقضيين دقيقة البرقس قدهد أي مركاسو ساريين بالليدي بيها وصلي يا رسولك لأن النبي سليمان عليه السلام مركا أوعي مركا شمبركي بوعي وحولها اللي مركا أوعي وحول محا شمبركا ما أنتو كم مغيهي وأوعر عارته أوهن جبي إن يركدي مركا شمبركي با يمدي با الليدي مركا النبي سليمان كويري وعبا عنيق هاي عارن بوكيد هانا يهن جبن war adigu aanad soo koobi karteen ayaan soo koobo waxaan ka yimid ardu saba waa degmo ku taala Yaman dhexdeeda ku taala wadanka aan tagayna boqoradu waxay ahayd gabadh bay ahayd iyadaas wadankaas waa wadan Ilaahay barwaaqo dhinac walba uu ka dhigay laakiin dadka loo barwaaqeeyay waxaan la kulmay buu yiri iyadii qoomkeedu waxay caabudeen cadceed markay soo baxdo Ilaahay sokadii cadceed u sujuudayeen buu yiri ay u sujuudayeen cadceed u sujuudayeen لأن مركا هلوم مجر قصده ويدارته تفسير كأي علماء هذا وشرحانه ورقد بو كقاده مركا رسالة بالنبي سليمان كقاده رسالة دي بو قاده بلقيس بو جيي بلقيس يقوم كيدي النبي سليمان بأوي مادين إن الدين الإسلام كصوق شجبة بقرده يقوم كيدو حسبب النقطة وشمبر شمبركو عقل ماله مكلف معه او رساله اسغا لوغو مكلفين حتى عباده لوغو مكلفين با الهي با ابوري لكن ما دام الهي ابوري عز وجل والنبي سليمان صحبت اولها waxay yaqaanaan iimaan alfitr bay leeyihiin waxay garanayaan xayawaanka oo dhan cibaadada ilaahay kaliya baa la iqwa cid kale oo cibaado mutaysatay caalamka ma jirto dadna marka qisadaas waxa laga waramay fi suurata an-naml baa ilaahay kaga waramay maxaa la inoogu sheegayaa waa shimbirka maxaa loo adeegsaday ummadan inuu islaamnimadooda sabab u noqdo waxa la ina tusinayaa ilaahay jalla wa ala inuu ilaahay risaaladan uu caalamka gaarsiiyo yaa ummata muhammad inni ma baahnin weeyaan haddaan doona khalqiga inaan hadayna baa ilaahay leeyahay waxba nagu qaadan meesha anaga soo hadeyn karayna marka inaan داينا دين تقشقنا كل جن ديار منا إن شاء الله ده هذا
cimrigeena aqligeena ilaahay baa na siiyay diinta inaan ka shaqeyno wadaniyada soo diyaar manin insha Allah